السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان bulshooyinka Soomaaliyeed meel ka soo doonay dacaladeed ka joogtaan soo dhawaada asxaabay. Magacaygu Ibrahim Nur Sagaale oo taqaanaan Abu Sagaale GK. Asxaabay mowduuc aad iyo aad u qaali ayaan caawidin wadaa. Mowduucaas oo ka hadlaya barashada dhulkeena hooyo ama barashada dalkaaga hooyo. Qaybtiisii koobaad. Qaybta koobaad waxaan kaga hadli doonaa maanta horta marka koobaad Soomaaliya maxay tahay? Waa maxay erayga Soomaali? xageebu ka soo jeedaa? dadyo kala duwan oo isku khilaafay ayaa jira macnaha erayga Soomaali. haddaadan aqoon hadda baro inta magac ee erayga Soomaali ay dadku u macneeyeen. waxaa laga yaabaa inaadan awal aqoon ama waxaa laga yaabaa inaad hal nooc u taqaanay erayga Soomaali markii la macneeyo. balse caawa halkan waxaan kugu sheegi doonaa ilaa 3 qaab ilaa 4 qaab oo magacyo kala duwan ah oo ay u bixiyeen dadyowgii inaga horeeyay magaca erayga Soomaali. kusoo dhawaada channelka. fadlan channelka aad ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan mowduucyada aadka u qaaligan soo galino iyo qaybta koobaad oo aan caaw bilaabi doono ilaa qaybta labaad ilaa qaybta saddexaad ilaa qaybta afraad qaybo kala duwan oo badan insha Allah bidnillaahi kariim. waxaan jeclahay inaad nala socotid kusoo dhawaada channelka. asxaabay marka waxaan guda galaynaa barnaamijkeena dadka taariikhda dadyowga dhirandhiriya waxay yiraahdeen eraygan Soomaali ayaa la isku qabtay marka qolobo qaab ay u sheegtay. Soomaali wuxuu ka yimid ay leeyihiin qoriyaha qaar laba eray oo isu tagay oo ah Soomaal, kaas oo ka kooban labada eray ee kala ah soo oo ah soco iyo maal oo ah lis. sida awgeed markii la isku daro waxay noqonaysaa soco lis. qaar horta saas ay u aqoonsan yihiin erayga Soomaali sababtoo ah waxay leeyihiin kuwanu soco wuxuu isu bedelay baa lagu yiri soo. waxay kaloo leeyihiin qaarkood erayga soo waa sac magaciis, maalna waa lis. markaas magacu wuxuu noqonayaa maal saca. qaar waxay dhahaan soco lis, qaarna waxay dhahaan maal saca. okay qofba fakar ay magacan qaab ayuu macneeyay way. dadka sidan aaminsan maal saca waxay leeyihiin erayga Soomaali waxa bixiyay dadkii u soo ganacsi tagi jiray dalka Soomaaliya qarniyadii hore. waayo markasta waxay maqli jireen oo dhagood ku soo dhici jiray Soomaal. tusaale ahaan rida Soomaal ama saca Soomaal ama hashan Soomaal ayaan u badannahay marka damiga la joogo. sida awgeed erayga Soomaal ayay aad u maqal jireen. sida awgeed waxay dhici jireen ardu Soomaal, dhulkii Soomaal looga yaqaan way macna. kuwa kale oo wax baara oo kuwa cilmi sayniska kamid ah waxay iyaguna leeyihiin ama wax baaritaanada sameeya waxay leeyihiin magaca Soomaali wuxuu ka soo jeedaa erayga Carabiga ah oo ah duumaal. duumaal kaas oo macnihiisu yahay shacab xoolo badan leh ayaa waxa loo yaqaan duumaal. qaarna saas ay u macneeyeen. waa qaybtii waxaan ku jirnaa saddexaad oo qoloha iyagu magac gaar ah u aaminsan. qaar waxay dhaheen soco lis, qaarna waxay dhaheen maal saca, qaarna waxay dhaheen duumaal. okay qaar kalena waxay ku doodayaan oo iyaguna afraad erayga kale ee ah in uu magacu ka yimid erayga kale ee ah Samaala. qaar kale ayaa haddana afraad waxay aaminsan eraygan inuu ka yimid Samaala oo macnaheedu yahay ninkii waranka dheera ayaa waxa la yiraahdaa Samaala. sidoo kale si kastaba ha ahaatee qaar kale ayaa baaritaankoodii ku soo horiyay ama ku soo gabagabeeyay qaar shanaad oo dib ka yimid magaca Soomaal in uu ahaaba la yiri ab iyo wasiirtii ama isirkii ay ka soo farcameen dadka Soomaaliyeed ee Awsamaanle. abooda yar dhigi jiray Awsamaanle. marka halkaas ay ka keeneen erayga Soomaali ee dadka qaar leeyihiin. dalka Soomaaliya dunidu waxay u taqaan ama u aqoon jirtay magacyo badan sida dhulkii udgoona. qaar ba dadku yaqaan dad muhaajiriinta wadanka iman jiray ama ganacsiga tijaariinta u iman jiray. iyo sidoo kale dhulkii eebe qaar ba u yaqaanay. geeska Afrikana qaar ba u yaqaanay. iyo sidoo kale magacyo kala duwan. sidoo kale dadkan Soomaaliyeed waxa kala loo kala qaybiyaa
afar qaybood oo kala ah dadkan Soomaaliyeed afarta qaybood oo loo kala qaybiyo waa afar qodob oo jirata laakiin siyaabahan hadda ay u sheegayaan qolyahan ama dadka taariikhdan sameeyay ay u sheegaan waxay muddaa inay wax ka bedelan yihiin waxay ku sheegaan boqolkiiba 60 inay dadkan yihiin reer miyi xoolo dhaqata ah waa dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 15 inay yihiin dad beeraley ah okay sidoo kale boqolkiiba 20 inay yihiin dad reer magaal ah boqolkiiba 5 inay yihiin dad kalluumaysato halka waxaan ka ogaan karnaa inaysan kalluumaysiga Soomaalidu aysan ku badnayn ilaa dhulkeedu dhul barwaaqo sooran oo kalluunku Ilaahay meel kasta dhigay uu yahay hadana kama faa'iideystaan way sidoo kale dad reer magaal ah inay yihiin boqolkiiba 20 baa lagu sheegay sidoo kale inay yihiin dad beeraley ah Soomaalidu laba aad loogu qiimeeyaa inay beeraley yihiin iyo inay reer miyi xoolo dhaqata yihiin labaduba midna 60 bay noqotay waa xoolo dhaqashada xaggeeda 60 bay boqolkiiba ka tahay oo xoolaha ka dhaqata boqolkiiba 15 beeraley way asxaabay barnaamijkeena caawa barashada erayga Soomaali ama bara dalkaaga hooyo caawinta ayaan ku soo gabagabaynaynaa waa qaybtii koobaad fadlan la soco qaybta labaad waa anigoo ah Ibraahim Nuur Sagaalle waxaan inta tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh isku soo noqod wanaagsan asxaabay إليا حياتي هراء سرقني استقاد أبوتي هيا إيغو إكادون أما كاكادو نفسي إردين